waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qorano shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theory waa qiso khuraafaadkii ahlu kitaabku yahuudiya waxaas ay rumaysnaayeen ka mid oo waxay yidhaahdaan nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxaa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa waxaa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira ee mar uun timaha laga xiiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay yidhahdeen in madaxa loo xiiro markaa ninkii uu tamar beelay waxay yidhahdeen daba yuu inagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho tay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen isbuuc walbana mar baa timaha laga xiiraa maalinunbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axadoo dee la isugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhaahdeen wixiiba wuu ku dumiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'iideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la isla dhinto dadka badh baa in la isku madho xal mooda in la isku madho oo hadna dhimo anna aan dhinto khalaas reeruhu ha madhaan dawladuhu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku uu xalka u raaco